Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusoo dhawaada koorsada graphic design ka taasoo aan ku baranaynay software-ka Adobe Photoshop. Maanta waxaan rabnaa inaan barano qaabka loo sameynayo congratulation poster. Tusaale ahaan qof markii jaamacadda oo kale uu ka qalin jabiyo ama markii xil loo magacaabo oo kale haddii aad doonto inaad u sameyso congratulation ama hambalyo poster ah qaabka u sameyn lahayd ayaan galabta baranaynaa sida loo suubiyo. Marka hore waxaan tegaynaa meesha aan ugu qorantaa file kadibna waxaan ku dhufanaynaa new kadib waxaan dooranaynaa cabirkan badanaa Instagram-ka loo isticmaalaa, Facebook-kan haddii aad doonto u isticmaali kartaa 2000 aan gelinaynaa. Kii hore aan isticmaali jirnay 18 kana waa isticmaali kartaa haddii aad doonto. Waxaa leedahay create. Okay, markii page cusub oo ku sameysmo waxaad sameynaysaa marka hore waxaan ka bilaabaynaa waxaan soo gashanaynaa rectangle shape. Okay, midabka kan hadda aan haysanaa ku dhaafeynaa kadibna waxaan ku aadinaynaa centerka. Waxaad isticmaali kartaa alignment-gan haddii saddexdan dhibcood meeshan canvas-ka hadda ii saaran ee ku saaran tahay selection active ma ku noqon doonaan ma ku shaqeynayaan. Sidaa darteed marka hore dooro shape-ka ama sawirka haddii aad rabto aad ku aadinaysid qaybta centerka kadibna waxaad tagtaa saddexdaas dhibcood taabo meeshan selection ay ku qoran tahay waxaad doorataa canvas kadibna center dooro. haddii dhex bartanka inaad ku aadisid arabtidna waxaa sii dooranaysaa center vertical dhexda ku aadi. hadda anaga dhexda marabno waxaan rabnaa qaybta kore inuu noo yaalo laakiin dhex bartanka inuu noo joogo. intaa markii aan sameyno meel banaan kali ku siinaynaa kadibna waxaan soo dooranayaa shape ellipse tool ah kadibna isagaan sawiraa. okay, shape-ka cabirkan oo kaleeto baan ka dhigay kadibna koraa usoo qaaday ilaa meelahan oo kale isagana sidoo kale waxay ugu aadisaa centerka. waxaan ka bixinayaa qaybtan filka markaan rabto marka shape-ka asagoo kuu dooran haddii aad ka laabatay oo move toolka oo kale aad tagtay waxaad ku laabanaysaa meeshan shapeska si ay active kugu noqdaan fill iyo stroke. shape-kan waa inuu kuu doornaadaa oo layerkiisa ku active garaysan yahay. waxaad tegaysaa meesha filka ah kadibna filka kasoo xir qaybta stroke tag waxaad doorataa midabkaas oo kale size-kan waxaa ka dhigaynaa 20 oo kale. okay, intaa markii aan sameyno wax yarkan koraan iskaga celinaynaa. waxaa samaysaa marka qaybtan dhexe aan rabnaa inaan soo gelino sawirka. saa darteed shape-kan ellipse toolka ah waxaa ii maraysaa qaybta ka hooseysa midkan kan waa inuu saro ku jiraa kadibna ellipse toolkan waxaa ka dhigtaa duplicate control J dheh copy ka samey kadibna control T dheh adigoo alt iyo shift haye soo yaray. okay, intaan oo kale markii aad ka dhigto waxaad sameynaysaa marka shape-kan rectangle-ka ah ee kor noo jiro labadan ellipse dhexdooda keen. okay, hadda marka waxaan haysanaa midkan oo qaybta kore noo jiro iyo ellipse-gan oo qaybta hoose jiro iyo rectangle-kan oo labadooda dhexdiisa yaalo. waxaad sameynaysaa midkan waxaan u sameynaynaa ellipse-gan waxaan u sameynaynaa fill meesha shape-ka ku laabo fill-ka tag kadibna cadaan ka soo dhig filkiisa stroke-gana ka xir ama stroke laftirkiisana cadaan ka dhig. intaa markii aan sameyno waxaa rabaa marka meeshan inaan sawir soo dhex geliyo. sidee usoo geli karaa sawir marka waxaan tegayaa meesha sawirka u yaalo sawirkaan soo qaadanaya kadibna waa kusoo dhex deynaa Photoshop kadibna sawirka weynee waxaa isla qabataa alt iyo shift si sawirka uusan dhinac kaaga weynaan. okay, intaa markii aan ku aadiyey marka meeshaas calaamadaas tigta aan sax siinaa kadibna right click dheh waxaa dhahdaa create clipping mask. waxaan rabnaa marka sababta saas u dhan waxay tahay shape-kan ellipse-gan inuu noo dhex galo sawirka. right click create clipping mask control T dheh sawirka kadibna hal mar dhinacaan waxyar usukiisa dhexda ugu aado kadibna calaamadaas saxda ah kala ku sii
inta markii aan sameeyno hal mar kulligood ii select garay kan u hooseeyo click si shift qabo layerka uu koreeyo dooro kadibna shift iyo falaarta kore isla taataabo si kor ugu dhaqaajiso meesha soo kale markii aan geyno qaybtan hoose waxaan noo soo dhigtaa layer meel banaan click noogu sii mar walba shape cusub aad sameynaysid layerskan ka qaad calaamadda active ka meel banaan click sii kadibna shape ka rabtid soo dooro rectangle shape aan doortay kadibna qaybta hoose ayaan soo dhigay midabkiisana waxaan ka dhiganayaa sida midabka kan kore oo kale wax yar hoose igu deji wax yar shadow aan sameynaa soo usoo muuqda laba mar click sii kadibna waxaad tagtaa meesha ay ku qoran tahay drop shadow distance wax yar ku dar okay negative 90 aan lahana laakiin zaid way kuwan spirit kan oo kale waxa ka dhigtaa 5 okay aan ku laabto mar kale size ka waxaan ka dhigaynaa isaga 4 distance igana waxaan ka dhigaynaa 4 kadibna waxaan leenahay okay inta markii aan sameyno waxaan sameysanayaa marka qoraal soo gashanayna waxay circle-kan waxa u malaasaa zaid inuu xoogaa u weyn yahay aan soo dhaweeyo control t d alt shift isla qabo okay waxa ii hubeysaa kulli inay centerka ii wada yaalaan sawirka centerka dii lagu aadiyo marka hore xoogaa gees marka asaga waa soo ceshanaynaa siman waala centerka u aadinaynaa okay waxaad tegaysaa meeshaan textiga kadibna waxaa soo qaadanaynaa far la yiraahdo signarita hora idinkugu soo share gareeyay kuwa kaloo farta nooceedana way jiraan insha Allah idin wadaagi doona waxaan qoraynaa congratulations sida capital ka dhigaynaa inta kalena small congratulations de control a de kadibna weyne okay kor u soo qaad xoogaa ilaa inta camal kadibna centerka ku aadi okay inta markii aan suubino wax yar kor iskaga celinayna dhamaantood kor u qaadayna si qoraalka kala position aan ugu helno waxaan qoraynaa marka qofka aan u hambalyeynayno magaciisa anagoo farta iska bedelayno waxaan isticmaalaynaa far la yiraahdo bibas kadibna waxaan qoraynaa magaciisa control t de wax yar weyne kadibna sida hadda oo kale kor u soo qaad inta markii aan keenno centerka ku aadayna okay qoraal yar oo English ku darsanayna waxaan leenahay happy graduation day kan aan ka yareyna kii hore okay isagana center ka dhig korna u qaad waxaan soo qaadanaynaa koofidan waa yareynaynaa anagoo alt iyo shift qabanayna qaybtaas oo wide ayaan kor saaraynaa xoogaa sharaxaad okay sidoo kale si aan usii sharaxno meesha usii qurxino waxaan tegaynaa qaybtan round rectangle-ka ah kadibna shape yar oo dhuubana meeshaan kasoo raaricinaynaa laba mar click siinaynaa kadibna gradient ayaan isticmaalaynaa kalarka dhinacaan jiro
kanoo kale ka dhigaynaa waxyaraa ka khafiifinayna kaas. Okay, qaybtaana kan marka haddii aan caddaan toos aan ka dhigno shibka waxaa arkaysaa in qaybta oo ekaana meesha ku tirtirmayo. Okay de okay sida intaas markaas wayna qaybtan hoose ayaa waxaan ku qoraynaa qoraal kale oo English ah. meel banaan klik noogu sii kadibna qoraalka noo qor. qoraalka waxaan kasoo dhiganaynaa farta caddaan si meesha noogu muuqato. noocan waxaan isticmaali doonaa fartaan Montserrat laho kadibna waxaan kalarkeeda ka dhiganaynaa macnaha qaabkeeda bold. klik sii kadibna waxaan ku qoraynaa wishing you all the best. Okay, farta noo yaree xoogaa. spacingka oo xarfaha xoogaa kala sigsanayna. kadibna centerkan ku aadisanayna. Okay, intaa markaan sameyno xogo yar backgroundka waxaan u sameynaynaa sharaxaad yar. koofidan iyo soo qaad mar kale kadibna geeskan igu siki. geeskaas kore waxaa ii geysaa meesha ugu hooseyso. alt qaba ii koobiyey. okay, opacity-kiisa waxaan ka dhigayaa 4. kanna sidoo kale opacity-ga waxaan ka dhigayaa 4 keliya si backgroundka meel gadaale looga arko keliya. waxaan filayaa marka inaad fahanteen oo aad samayn kartaan poster sidan oo kale ah. waxaan idin rajeynayaa horumar wanaagsan. anigoo ah Xasan Abuukar Axmed Xasan Xidig. fadlan channelka haddii aad ku cusub tahay subscribe noo saar, gambaleelkana furo si aysan ku dhaafin casharada xiga. asxaabtaadana la wadaag muuqaalka haddii aad ka heshayna like saar. ramadaan wanaagsan wabilaahi tawfiiq. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.